waxa uu ahaa aragtida muuqaalka wiilka yar ee idin muuqda mid bedelay dareenkayga. 3 maalmood oo kaliya ayuu ifkan saaran yahay, waxa uuna ku dhashay mid ka mid ah mucjisooyinka rabbaaniga ah ee uu Eebbahay addoommadiisa tusiyo si ay ugu cibro qaataan. kuma uusan dhalan meel uu ka saxaroodo, waana mid haatan sabab in ehelkiisa iyo waalidiintiisa ay la tahaan xanuunkan wiilkooda yar. waxay maanta nagu soo booqdeen xarunta telefishinka Kalsan ee Muqdisho si bulshada Soomaaliyeed ay ula wadaagaan lacag dhan $1,200 oo mid ka mid ah maamulada xisbitaalada Muqdisho ay ku wargeliyeen in qaliin loogu sameyn doono wiilkooda yar. Salmaan Yaxye waa aabbaha dhalay wiilkan yar. waxa uu dhankiisa inoogu xog waramay in dhowr cisbitaal oo ka mid ah kuwa ku yaala magaalada Muqdisho ay geeyeen inankooda, balse lagu wargeliyay in aan waxba loo qaban doonin ilaa ay ka bixiyaan lacag cadadkeedu uu yahay $1,200. oo habeenka Arbacada soo galeysay cunugan waa xanuunsan yahay, isbitaal walba geeyni, meel walba geeyni, waxa noo qabtaa waa in lacag oo waxaan loo xujiyay oo $1,200 la rabaa, la jiif iyo sariir iyo waxa dhalaal u kornaa. anakan wixii ma awoon dad oo danyar aan nahay, marka walaalayaalow dal iyo dibadda inaa wax noo qabatiin oo cunugaas waa u jeedin, waa xanuunsan yahay, waa jirin yahay, meel oo saxarad oo ka waxay malahan si loo dhal ilaa hadda ma calooshiisa iska dibarsan tahay, waa cagaarati wax oo hadda wax noo qabta isbitaal walba geeyni, wax noo qabtaana malahan. nin walba wuxuu leeyahay lacagtaas ala soo shubo markaas qaliin lagu sameeynaa, meel walba geeyni wixii qarashkii hadda soo shubo hadda qaliin lagu sameeynaa. anagana qaliinkii ma oon cunugii iska soo noqsan guriga keesan. marka waxaan rabnaa walaalahana muslimkeena cunugan oo wax noo qabtaan. isbitaal Digfeer algey Digfeer Banaadir geeyna, Banaadir markii Digfeer geeyna, Digfeer keena lacagtaas oo la shubin qaliin loo qonaa. cunugan si loo dhal meel oo ka saxaroodo mala lacagta $1,200 soo shubeen markaas qaliin loo sameeynaa. ana keena lacagtii ma awoodno, cunugii lacagtii ilaa hadda al soo shubo markaas qaliin loo sameeynaa. cunugiina anaga waa soo celinay, lacag ma awoodno, dad danyaraanahay, lacagtaas meel ka keena mala. hooyada dhashay Salmaan Yaxye oo ah aabbaha dhalay wiilka yar ee la dhiban mucjisada rabbaaniga ee uu Eebbe ku dhaliyay ee ah inuusan lahayn meel uu ka saxaroodo, ayaa waxa inoo sheegtay in tani ay tahay mucjiso Rabbi, qadartuna ay tahay mid ay ku qanacsan yihiin, balse bulshada inta awooda inay garab istaag u muujiyaan aysan ka maarmin. maanta meehan dhib baalna keenay wiilkan aabihiisaan dhalay. wiilka dhalay waa curudkeyga. wiilkii haddii la dhalay daraadaa la dhalay, markaa la dhalay wiilkii daw male, saxar meelay ka baxda male. bas ilaa markiis shal isbitaal Banaadir aan geeyni. Banaadir waa noola sii dir, waxaa noola dir Digfeer waxaa noola yar calaa qaliin $300. 3 qaliinas maraha $900 la rabaa, ilaa sariirtii oo 70. haddii hadda 300 soo hormarinaynin qaliinka kan koowaad kan labaad kan saddexaad $900 waa haalin. 900 waa awooda wayne. isla markaas waxaan u liir miiska soo saar. dad iska danyaraanahay, aniga qof iska xanuunsan oo dhaawacsan oo laftaan ka jabsanaan ahay, waa saanaan u duubanaa xaaladeyga bariga dhaxawaaye. wiilka aabbaha dhalina nolol maalmeedkii aaba waqtiga la taagan yahay waa arkaysin aaba la gaareynin. marka dad islaan ummada rasuulaan soo dhaxgalnay. waxaan rajaynayaa dal iyo dibid walaalahayna muslimiinta inaa micnaha wiilkan xaaladiisa bariga dhaxa ay tahay inaa wax noo qabatiin. Salmaan Yaxye ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in ay soo caawiyaan ina ka qayb qaataan bixinta qarashaadka lagu caawinayo wiilkooda. marka walaalahana muslimiinta waxaan leenahay cunugan oo wax noo qabtaan oo waa ujeedin kula xaaladiisa hadda si uu yahay, calooshiis markii si dambe soo si dibre meel uu ka saxaroodo dhan malaha. furaha waa 697 24 48. furaha waa 697 24 48. mucjisooyinka Eebbahay uu addoommadiisa tusiyo
waa kuwa aad u badan, balse bulshada Soomaaliyeed waa kuwa inta badan isku garab istaaga dhacdooyinka caynkan oo kale, midkood midka kalena uu ka itaroon yahay ku caawiyo wax uu awoodo. Haddii aad u awoodo inaad kala qayb qaadato si uu caafimaad u helo wiilkooda yar, fadlan kala xiriir taleefanada shaashada idinka muuqda.